waa masjid jaamaca weyn ee magaalada Caynaba waa kii ugu horeeyay ee laga yagleelo magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxa uu soo jiray muddo ku dhow hal qarni waqtigii masaajidkan dhisnaa waxa ka soo aflaxay wax ku soo bartay inta badan culimada diinta iyo aqoonyahanka kala duwan ee ka soo jeeda guud ahaan gobolka Saraar kuwaas oo ku kala dhaqan daafaha kala duwan ee dunida haddaba masaajidkan ayaa haatan laga dayrinaya xaaladda uu haatan ku sugan yahay masjidkan oo ku yaala meel didiba ayaa waxay sababtay in ciidu ay cunto qaybaha hoose ee masjidkaasi isla markaasina ay soo faqfaqaan guud ahaan qaybaha hoose ee masjidka dadka muxsiniinta iyagu masaajidkaasi gacanta hore uga hayn jiray ayaa muddo dheer waxay isku dayeen inay masaajidkaasi ay wax soo taraan isla markaasina ay dib u habeyn iyo dib u dhisid ku sameeyaan balse haatan waxa uu gaaray meel aan waxba laga qaban karaynin maraano booqanay masaajidkaasi ayaa waxaanu kula kulannay culimada diinta waaweyn ee gobolka Saraar waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda uu haatan ku sugan yahay masaajidkaasi waxayna tilmaameen in haatan aanu masaajidku u baahnayn kabkabis iyo dib u habeyn dambe balse haatan loo baahan yahay in guud ahaanba dhismahan la bedelo meeshana laga dhiso dhismo casri ah waxayna baaq u direen guud ahaanba qurba jooga aqoonyahanka mas'uuliyiinta iyo cid kasta oo khayrka jecel waxayna ka codsadeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga yagleelayo halka uu haatan ka dhisan yahay masjid jaamaca magaalada Caynaba dadkii ugu horeeyay cid kasta oo Caynaba garanaysa masaajidka waxaan jiray intii wadanka la soo galay intii ka horeysay masaajidka qura magaaladu lahayd kulli waxaan filayaa qarni iyo bar meelaha inuu dhisan yahay kulli 100 sano waxba dheer inta uu dhisan yahay dhismaha de ilaa xilliga soo jiray oo wax ribeedinahoo lagu sameeyayna mar baa jirtay laga qaaday qoriga ciidii saaraa jiingad la saaray intii ka dambeysay waxba kale laguma darin waa dhagax didiba iyo dhoobo ayuu u badan yahay mar walba in la daba joogo rinji iyo sibir yar ayaa iminka lagu wadaayo lagu tukuminayaa masaajidkaas de maanta masaajidadii la mid ahaa si masaajidkii Saalixiyada Burco waad aragteen masaajidkii Saalixiyada Laascaanood waa la arkay marka dadka muslimiinta iyo waliba dadkii reer Caynabo iyo dadkii masaajidkan ehelka u ahaa ama imaamiyadii soo maray waa masaajidkii ilaa iyo walaaleeye lagu soo tukan jiray Sheekh Axmed raxmatullaahi calayhi Sheekh Maxamed Ismaan Macallin Xirsi Axmed oo ugu dambeeyay iyo iminka oo deeyn taaganahay intaas oo dhan waa masaajid qadiimi ah wuxuu u baahan yahay marka in la isgaarsiiyo oo wixii muslimiin ah ama masaajidka garanaya ay wax ka soo qabtaan siba waxaan aad ugu sii doonayaa inaan u sii xusuusiyo dadka reer Caynabo ilmo Macallin Xirsi Maxamed Macallin Xirsi Umar dhamaantood waxa weeyaan de maanta hadii ay iyagu u dhaqdhaqaaqaan waxa laga yaabaa inay meelo badan u garaaci karayaan oo dad muslimiin ah oo badan oo khayrka doonaya ay heli karaan oo wax la qabta laakiin hadii aan la dhaqdhaqaaqin waxa weeyaan de wuxuu noqonayaa meel iska duntay sida aad arkaysaan qaraabadihii dhinacyada ka xigayba ay u wada duman yihiin magaalada Caynabo la oran jiray ee markaa uu masaajidka u haana hadda isaga ayuunba ka sii jira waana masaajidka iminka ugu badan ee dadka reer Caynaba ay ku tukadaan wuu buuxsamaa inta badan waxa weeye waa masaajidka ugu badan waayo waa masaajidka qadiimiga ahaado cid waliba ay garanayso qof kasta oo xitaa sadcaali wuxuu ku soo talagelayaa inuu masaajidkii ku sii tukado Caynaba uu garanayay sidaas daraadeed waxaan doonaynaa masaajidka iminka in dee casriga lala jaan qaado si fiican loo dhiso oo maanta dee dabaqyo laba dabaqyo saddex dabaq baa la marayaa dee dhoobo is saaran iyo biyo darooraya dee ma jirto masaajidda lagu tukadaa dadku markaas xoolahoodii waxay gashanayaan de masaajidda waana meel xoolo la geliyo meesha ugu khayrka badan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man banaa masjidan bana allahu fi ljannati baytan qofkii markaa guri masaajid dhisa ilaahayna jannada ayuu uga dhisaa guri ilaahayna subxaana watacaala wuxuu inoo tilmaamay dadka masaajidada caamire ee maalkooda geliya ee hagaajiya waa dadka un markaas iimaanka leh inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwa reer Caynabo iyo kuwa haru ahaan jirayba reer Caynabo iyo kuwa hadeer ahba inay masaajidkaas si uu la jaan qaado masaajidada kale cusub de maanta
lagu tukanayo waddanka iyo masaajidadii hore ee uu la faac ahaa burco iyo dee laascaanood iyo la wada garanayo waa in dee maanta dhulka laga qaado la hagaajiyo masaajidkaas oo runtii ka muuqdo dayac fara badani xilliga la dhisanayo ahayd xilli aad u horreysay sidaa daraaddeed masaajidkaan soo gudbinayna waxa weeye masaajidkaas wuxuu u baahan yahay in la dayactiro oo wax laga qabto dhismihiisu waa dhismihii hore waxaa qof walba markhaati ugu filan dee qaraabadahan iyo heeraha ka xiga xilliga la dhisay unbaa isna la dhismaha lagu dhisay waqti waxaasun buu ahaa dee waa kuwa dhismayaasha la midka burburay waa dhismayaashii hore aan maanta qaabkan aan isticmaalo weeyaan waa dhoobo iyo dhegid baa ku jira masaajidka dhoobo iyo dhegid laysa saaray buu ahaa dushana marka kadib sawirka laga mariyey waxyaabacankaas baa qaabkaas u dhisnaa qaadir maanta albaabadii waa burbursan yihiin siliigi waad aragtana biyaha jigada biyaha soo daynaysa dee dayax fara badan baa ka muuqda masaajidkana masaajidkii macalin xirsi allaha u naxariistay dee ardayda faraha badan ka soo baxday ragga ka soo baxay aan garanaynaa maanta ardayda ka soo masaajidka madrasada ka baxday iyo macallinkii iyo intuu masaajidka u dhisnaa iyo sidii masaajidku oo dayacan yahay sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa masaajidka qof allaale cid wax ku darsan karta in masaajidkaanu gacan saarno oo masaajidkaanu wax ka qabanno إن شاء الله تعالى وحوي ونباقي ما أنت هلكن عن السجون صلاة عشر دقيقة دي أنا كهلنا وحوي وضيعتك مساجدك معناها قديمة جها عينبا سدا علماء الجهر السبعة كذا واتشين ده ومساجدك معناها تاريخ ده يحلقة يوقتك كسرنا أنت بس ده معناها شيخ آدم أحمد الجهري وما توشيله وحوي وحنكورنا ده ميل الجود كي لما ده يعني كورنا وحوي روكان يلا عس معناها أن دول تاجرنا هاجننا هوستا إما كهدي لقى قالوا واحد موديس معناها أبشد معناها بحرك أبشد كلا يهذا واركتي ولا مرك أبشد كلا سمينيو مرة بقول مرة أو كلا كان أيها السوق هذا سيدا صوف أرولك بحرك اللي هذا أكله صوف كي أرولك أكلوي وحوي هالكي لقى قالوا روكان لقى قالوا واحد صارن ركعد لبت اللعبة دحدة بركعد بصارن وهو ركعدها واحد كوسكرين يو كينا أو معناها أي كتير من وحوي dhismaha meesha laga dhisayay ee markaas soconayay ayaa wuxuu ahaa dhoobo macnaha dhagad ah iyo sagxadda waxa la dhigayay oo dhagidka ahaa ilaa iyo macnaha lagu masaxayona inta yar ee sibirka ee dusha mooyaane waa wada dhagadkuna cilada uu leeyahay waxa weeye wuu tarmaa oo wuu bararaa isaga ayaa macnaha kubciya marka wuxuu samaynayaa in 6 biloodba ومعناها ماشي ما أنت لا رجعي إنه يسوق اللقو وماشي مال هوسك قشوا ماشي نعيد بدنا نقطة مال سريع وسوت هاجن تبدنا ولا قد بوح لقو شريه أو مساعد كين لحد يسيون لقضيه إن لقضيه أيوم بلقو شريه دوش يسوى أركي صاروا معناها صدق كمرة داك أركي دونتان ولول كمارت أي صوت عادي سي محيا هيتو سيليكو صوت عادي سيليكا صوت عادنا أو دوشة معناها شين قدة ومعناها دي راكتي يقولي أو راجي waxaas oo dhan marka dabayshu maartay ay xilliyada dabayshu ay jiraan dabayshan ay dalaxayso ee jiingada ku tuurayso halkii ay ku ay saarto dabayshu dhaska ay saartaa dhagadka yar ee jiingada qabsanaya marka roobku ku helo way goynaysaa meeshii laana wax iba wada midaxa dabadeedna wax kasta waxay ku noqonayaan qabyo taagan oo macnaha aan cidina u maqnayn ee la u qodnayn bay noqonaysaa marka sidaa maartay culimadu ay sheegayaan waa masaajidka ugu dadka badan leh ومساجد وجوه الرجال مركان لا وجودت كبدن له وحويان مركان أنت لقرنا يدوب مركان لقى صور راعه إلى ولا إلى يوم حي هيتو مع الحرس يودن بي عد أي وحبرين عد كأف لحدي عالم دافيه سعودون ويتشوجان عد كله هدي أنا معها ولا بإرسان أنا ولا تجين إيجا كفران إيجا أيا كفران معلن ده سهل كان محل نقول كذا ويلير أو معها اللي يرى نقول كذا مرين كي يمرها نكيمي وحولي أوجي أوجي أيام معناها مساجد كان كسوة في الحي أو كسوة بحيول أوجي أيا كسوة في الحي مركا وحوي الدعاء مساجد كان معناها بحيا وكقاتي أوجي يسجون أو كده أيام يسجون كده حول مركا إلا سيدا درت وحاول إلا أنت عن سبب فينا يقول مساجد كي أوجي كسوة بحيا وكسوة في الحي إلا الكسوة كده مركا هو مساجد كان نوع عاصر مركا هذا عد كلام معناها إسلام كلام معناها هدي أنا سجوا أقون ولا هين أنت أقون تقوله أيام بكون في الله هيد وما أنت مساجد اللي بافيه والله يدور وكع ما دمو هذين كيسي ودم بعد والبكر كيسي دوا ولا تشوجان لكن هذا ولا قصي كلا حقلية هالواقع أيام لأن هاي معناها مساجد حلها لا سيسارو كل ده علماء قدام بيسايا وحي معناها أنا دافينا معناها إن كدر دونتا مركب وحنا هاي أنا جو حنكوها إن مساجد كي أو إما كمعناها أن آدي ويل درنا هاي أو أن تشعل هاي
ninkii macnaha isagu wax ku darsanaya isaga ayaa leh ninkii macnaha hadalkayagaasu gaadhowba ama mid macnaha masaajidka u abtirsanayay noqo ama mid aan u abtirsanay noqo ninkii hadalkayagaasu gaadhow ama shaashada naga arkow waxa weeye halkii dhabta ahayd ee laysaga yeedhi lahaa ee qof islaama looga yeedhi lahaa ayaanu ka baaqaynaa ka soo qayb gala sidaad ka arki doontaan qaraabadihii iyo guryihii hore ee masaajidka hareerihiisii dee wuu ka hadhay waad arkaysaan wuu ka hadhay waad arki doontaan oo shashadaad ka arkaysaan qaraabada inta waxa ku hareeraysan dee waa wada yacni dhul dumay iyo qaraabada laakiin isaga wuu ka hadhsan yahay ha ka hadhsanaadee waa dhismihii hore aduu gacankuhaynta ribeerhka marba wax lagu samaynayay baa ayaa dee uga hadhay dadka muslimiinta ah meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo maalkooda ay geliyaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ugu dhowaadaan oo ciddii abaabul wadda sida lay sheegay dhallinyarada aan in badan garanayo oo dibadda joogta oo uu ka mid yahay cismaan macalin xirsi axmed oo uu ka mid yahay mustafa siciid barre sida lay magacaabayay saleebaan rag noocaasa intii markaan garanayo iyo intii marka aanan garanaynba waxaan leeyahay abaabul ha loo sameeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisa ha lagaga qayb qaato adduunyada iyo aakhiraba yacni waa lagu faa'iidayaa waana wax laga shaqeeyo wixii ugu fiicnaa marka waxaan leenahay khayr allah idin siiyo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba iyo dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba ha laga qayb qaato oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku siduu xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu sheekh aadam uu sheegayey qofkii guri dhisa yacni masaajid dhisa ilaahay jannaduu guri uga dhisaya jannada ayuu ilaahay guri uga dhisaya marka rabbi tabaaraka wa tacaala in loogu dhowaado oo loo ururiyo waad arkaysaan oo yacni sawirkaad ku arki doontaan dayac iyo waxyaabaha ka muuqda marka waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inoo fududeeyo dee ha laga qayb qaato dadka muslimiinta dhammaan meelay joogaanba aad aragtaan waxa weeyaan waa masaajid waa baytullaahi raxmaan yacni waxa weeyaan taariikhdiisana sida la sheegay dawaa la garanayaa waxa weeyaan waa masaajidkii saalixiya waxa weeyaan yacni waxa weeyaan dhismihiisa waxa weeyaan dee taariikhdaasuu soo jiray waxa dhowdhoobaya maaragtaan ku joognaa waxa weeyaan waa cibaadada iyo guriga ilaahay sidaa darteed waxa weeyaan caalamka waxaan ugu baaqanaa dadka maaragtay yacni waxa weeyaan inay maaragtay masaajidka soo caawiyaan inay maaragtay yacni waxa weeyaan guriga ilaahay qof kasta waxa weeyaan wuxuu ka helayaa wax maaragtay wanaagsan haddaba dadka khayrka jecel iyagu doonaya inay arrintaasi ka qayb qaataan wixii tabarucaada ay awoodaan waxay ku soo hagaajin karaan lambarrada shaashadda ka muuqda